الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد مرشحين حلك مدحوينها بحث الصحافة ومدى الصومال المال جوكتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة وناكسن الشركة جرائد وحكو سابسين هاي مظاهرات كي أي قرشة سنة برتي أنو دعوه ويكو باقين مدوغة مرشحين إذا لسعوتين بريها واحد سعي وذا هذا كل حي دولة إيو مدوغة مرشحين rajo weyn waxaan ka qabnaa in wax la isku soo dhaweeyo oo la gaaro go'aano keeni kara in doorasho la wada aado laakiin nasiib darro xalay waa lagu guuldareystay annaga waxaan isu qaban qaabinaynay mudaharaadkii Brito laakiin sida dad badanba oo halkan jooga ama dad badan oo magaalada jooga ay arkeen goobihii loogu talagalay mudaharaadka kulligood waxa la geeyay ciidamo taasoo ka baxsanad balantii iyo heshiiskii hore loo galay taas marka waxay muujinaysaa dooda murashaxiinta oo ah arinta amniga iyo arinta ciidamada maadaama madaxweynuhu xilkiisu oo dhamaaday haddana loo adeegsanayo hab khaldan in ay noqoto issue go'aan laga gaaro sababtuna waxa waaye dalkan ciidanka oo siyaasad gal hore u dumiyay haddana waxaa noo muuqata meeshii inuu ku socdo waliba iyadoo dalkii aan gacanta lagu haynin oo siyaasiyan uu qaybsan yahay abni ahaan intiisa badan ay shabaab haystaan magaalada muqdisho ay canshuur ka qaadayaan in xurriyaadka ciidanka lagu qaado arrin aad iyo aad u xun sidaas darteed madasha murashaxiintu waxay go'aansadeen in dib loo dhigo mudaharaadkii lagana shaqeeyo xilli ay soo goynayaan murashaxiintu amnigana ayagu ay sugayaan marka mudaharaadkii qorshaysnaay biri dibaa loo dhigay dadka abaabulayaasha taageerayaasha shacabka Soomaaliyeed dhammaantood waxaan uga mahad celinaynaa dadaalka iyo runtii dhabar adayga ay u qaadeen arrintaanu ma aha arrin khusaysa murashaxiinta kaliya arrin khusaysa taageerayaal arrin khusaysa kaliya maxaan ku yiraahdaa dadka abaabulayaasha waa arrin dadka Soomaaliyeed masiirkooda khusaysa maxaa yeelay shacabka Soomaaliyeed inay awood u leeyihiin inay soo banaan baxaan oo ra'yigooda cabiraan waa arrin dastuuri ah waa arrin qayb weyn ka ah dhismaha dawladnimada iyo processka dawladnimada habka nidaamka dimuqraadiga marka arrin laga tanaasuli kara ma aha waa arrin aad iyo aad muhiim u ah laakiin waa nasiib darro runtii madaxda dawladda oo xilkeedu dhamaaday inay ciidanka ku awoodiisa ku takrifalaan oo ay u adeegsadaan inay ku caburiyaan xurriyaadka ku qaadaan runtii arrin aad iyo aad looga xumaado waaye sidaas darteed mar kale waxaan leenahay waa mahadsantihiin dadkii abaabulayaasha ahaa dadkii ka shaqeynayay maxaan ku yiraahdaa taageerayaasha aad iyo aad oo mahadsantihiin arrinta laga shaqeynayo waa arrin dhammaan masiirkeena iyo masiirka carruurteena khusaysa maxaa yeelay haddii xurriyad la waayo macnaheedu dawladnimo ma jirto waaye dawladnimada dhibaatadeeda hadda taalana in cidda haysa ay ku takrifasho waayo wanatan aan ka soo wada horjeedno aad iyo aad oo mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh